soo dhawaada saaxiibayaal. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo Nala barayo nin la yiraahdo DR Robert Lyon. Wuxuu u muuqdaa inuu ku jiro dhismo weyn oo burbura, jirkiisana waa wada dhiig. Wuxuu gubayay waa wax aan si cad loo fahmi karin waxa ka dhacaya halkan. Kadib sheekadu waxay isku bedelaysaa iyadoo laga soo wareegtay 3 bilood gudahood. Hayras, dhismaha ugu dheer magaalada London, ayaa halkaa lagu soo bandhigayay. Dhismaha waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka doonaya nolol casri ah. Khariijyadu waxay ku nool yihiin dabaqa ugu sarreeya ee dhismaha, halka dadka saboolka ay ku nool yihiin dabaqa ugu hooseeya. Taasi waxay ka dhigan tahay dadka ugu hodansan waxay ku nool yihiin dabaqa 4aad, halka dadka hodanka ay ku nool yihiin dabaqa 39aad. Iyo qof kasta wuxuu ku nool yahay dabaqu ku leeyahay si tartiib ah hoos ugu socoto. Dhismaha wuxuu leeyahay dhammaan adeegyada dunida sida biyo xireen, jimicsi, suuqa iyo iskuulka carruurta, si aysan ugu baahnayn inay dunida u baxaan. Dhammaan dadkaas waxay ku nool yihiin dhismahan si buuxda ayay ugu go'een dunida kale. Halkan wuxuu kula kulmaa hooyo kaliya, waxay kaloo leedahay wiil. Waxay xiriir xoogan la sameeyaan muddo gaaban oo aad u dhaqsi badan. Sidoo kale DR Robert wuxuu saaxiib la noqday duuba filimsameeye ah. DR Robert waa macalinka sayniska noolaha. Wuxuu cashar ka dhigayay fasal isagoo goynaya madax bini'aadam. Ardayda midkood ayaa ka niyadjabay inuu arko ardaygaas. Waxaa loo diray baaritaan maskaxeed. Maalintii xigtay DR Robert waxaa loo yeeray inuu la kulmo Anthony Royal ee dabaqa 4aad, halkaas oo dadka ugu hodansan ay ku nool yihiin. Royal ayaa dhisay dhismaha. Xaaskiisa ayaa sidoo kale halkan looga soo bandhigayay, oo aan si weyn u muujinaynin muhiimadda dad kale ay leeyihiin. Wuxuu DR Robert ku casuumay inuu yimaado xaflad uu qabanayo dhowr maalmood kadib. Maalintii xafladda ayaa timid. Xafladan waxaa loo asteeyay dharkii qarnigii 18aad. Taasi waxay ka dhigan tahay in qof walba ku yimaado dharkii qarnigii 18aad. Taasi waxay dhacdaba, laakiin DR Robert wuxuu u labisan yahay sidii caadiga ah maalmihiisa, maadaama uusan ogeyn mowduuca xafladda. Muuqaalka dharka Robert ayaa qalalaasa ka dhashay xaaska Royal iyo booqdayaasha kale. Taasi awgeed xaaskiisa iyo ardaygaas casharka ku dhacday ayaa muujiyay ixtiraam la'aan. Waxaa lagu tilmaamay mid xun, waxaana laga saaray xafladda. Kadib markii laga saaray xafladda, wuxuu aaday wiishka, laakiin sababo la xiriira go'itaanka korontada waxay ku xirmadeen wiishkaas. Royal ayaa sheegay in go'itaanka korontada uu socday dhowr maalmood. Biyo xireenka ayaa hakad galay iyo tubada qashinka ayaa si sax u shaqaynayn. Dhibaatooyinkaas ayaa noqday kuwo si caadi u dhaca. Sheekadu way sii socotaa. Warbixinta caafimaad ee ardayga DR Robert, miisaanka ku dhacay way fiican tahay, waxba ma dhicin, laakiin si ugu rufinjiyo DR wuxuu ku qanciyay inuu hayo tamar maskaxeed. Dhakhtarku wuxuu sheegayaa taasoo sabab u ah ardaygaas ayaa DR Robert ku xumeeyay habeenkii xafladda. Kadib waxaan aragnaa in ardaygaas uu ka yimid dabaqa 39aad isagoo sameynaya khamriga uu isdilay. Booliska ayaa yimid, laakiin arrintaas si fiican ma baarin. Sidaas awgeed saaxiibka dhakhtarka Richard Wilder ayaa aad ugu niyadjabay. Wuxuuna qorsheynayaa inuu iftiimiyo oo joojiyo dulmiga ka dhacaya dhismaha Hayras. Cidna kama baxdo, cidna sooma gasho dhismaha Hayras. Shuruucdii amarka waxaa gebi ahaanba la iska daayay. Dembi ayaa noqday mid caadi oo ka dhex jira Hayras. Cuntada ku jirta supermarketka ayaa bilaabaysa inay yaraato. Taasi awgeed dadka ayaa bilaabaya inay dagaalaan. Dhanka kale, Royal waxaa lagu eedeeyay in lagu riday musuqmaasuq boolis si looga bacsado arrimaha, si aan wararka ka dhacaya dhismaha aysan u bixin dibadda. DR Robert dhinaciisu wuu ku xun yahay, wuxuuna sheegay in ardaygaas leeyahay tamar maskaxeed. Dhakhtarku wuxuu noqday mid xanuun maskaxeed, wuxuuna ku xiran yahay qolkiisa. Wuxuu naftiisa ku eedeeyaa inuu noqday mid maskaxaan xasiloonayn. Wilder ayaa qorsheynaya inuu dilo Royal kaasoo dhisay dhismaha. Wilder wuxuu u maleynayay in Royal uu gacanta ku hayo arrinta oo dhan. Markii uu soo dhawaaday inuu dilo, wuxuu ogaaday inuu leeyahay wiil aan dunida aqoon. Si adag ayuu u soo gaaraa gurigiisa oo waa uu toogtaa. Sababo awgeed, Royal waa uu dhintaa, Wilderna wuxuu toogtaa gabar. Sidaa awgeed, 2 dhimasho ayaa ka dhacday halkan. Wiilka ayaa si qarsoodi u daawanayay dhammaan arrinta. Waxaa ka jirta qoys dhismaha oo dhan, dadka waxay ku dagaalamayaan. Qof ayaa raadinaya cunto, qofna wuxuu raadinayaa xiddiga. Dadku waxaa ka buuxa nacayb. Dadkii saboolka ayaa dilaya kuwa hodanka ah, kuwa hodanka ahna waxay dilayaan kuwa saboolka ah. Sheekada filimka waxay dib ugu noqotaa halka ay ka bilowday, markii DR Robert uu ku jiro shaqooyin burbursan. DR Robert wuxuu u muuqdaa mid gebi ahaanba la yaab leh. Wuxuu sii waday inuu la kulmo xanuun
maskaxeed. Wuxuu la hadlay naftiisa, sheekadan waxay gaartay dhammaadkeedii. Maxay sheekadan ina baraysaa? Waa maxay macnaheeda? Qoraaga sheekadan wuxuu leeyahay meel kastoo ay ka jirto kapitaalismka dowladeed marnaba kama jiri karto xorriyad siyaasadeed. Tani waxay ka dhigan tahay meel uu hal qof xukumayo marnaba kama jiri karto xorriyad siyaasadeed. Dadkana ma laha xuquuq isku mid ah. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay sharaxaadda filimka. Haddii aad sidaas u aragto, riix subscribe, muuqaalkan like saar, mahadsanid.